sanadu markay ahayd 1324 miilaadiga mid ka mid ah boqorradii qaaradda Afrika ayaa u hayaamay magaalada Makka si uu soo guto waajibaadka xajka. safarkiisan uu galay Makka wuxuu ahaa taariikhda safarka ugu saameynta badnaa marka laga hadlay dhaqaalaha adduunka. Waxa qiimo beelay dahabkii dhammaan magaalooyinka sii marayna waxay sanado badan la daalaa-dhacayeen sicir barar aan dhammaad lahayn oo saameyn xooggan ku yeeshay noloshoodii. magaalada uu sii marana wuxuu ku dhaafay dahab aan tiray xaddi toona lahayn. haddaba boqorkan waxaa lagu magacaabi jiray Mansa Musa. waxaa lagu tiriyaa dadkii ugu hantida badnaa ee soo maray adduunkan iyo ahaa boqorkan deeqsiga ahi sidee ku hantiyay hantida intaa leeg. magacaygu waa Axmed Maxamed, halkeena waa Halgan Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. sanadan hadda joogno waxaa la sheegaa mulkiilaha shirkadda Amazon Jeff Bezos inuu yahay ninka ugu hantida badan adduunka, wuxuuna leeyahay hanti gaadhaysa 115.6 bilyan, halka Bill Gates uu yahay qofka ku jira kaalinta labaad. marka la eego waqtigan aynu hadda nool nahay waxaad u arkaysaa lambaradaas inay yihiin kuwa aad u badan. waxaynu ka hadlaynaa bilyanis. haddaba marka laga hadlayo dadkii ugu hodansanaa adduunkan waxaa jira qof mar walba lagu tiriyo inuusan jirin qofka hantiya hodantinimo badnaa hantida uu haystayna weli aanu helin qofna dabadii. Mansa Musa wuxuu ka mid yahay boqorradii soo maray dalka caanka ku ah dahabka iyo milixda ee Mali. kelmadda Mansa waxaa loola jeedaa boqorkii boqorrada. wuxuu magacan u baxay horumaradiis daba joogga ahaa ee uu ka sameeyay dhulkii uu ka talinayay. 25 sano oo uu hayay maamulka dalkaasi wuxuu u bedelay Mali mid ka mid ah dalalka aqoon ahaan ugu horumarsan uguna dakhliga badan. sidoo kale intuu talinayay wuxuu sameeyay ballaadhin dawladeedkii ugu weyneyd isagoo oo gaarsiiyay maamulkiisii dalal ay ka mid yihiin Morocco, qaybo badan oo ka mid ah Suudaan, Kenya iyo dalka Niger. waxayna Mali noqotay dal tusaale u noqday aqoonta iyo hodantinimada, iyadoo oo boqolaal arday ahi oo ka kala socda daafaha adduunka u soo dooran jireen waxbarasho. dhaqaalaha boqorkan iyo dawladdiisu wuxuu ku tiirsanaa dahabka, iyadoo soo saari jirtay dahab aad u tiro badan maadaama uu dhulkooda hodan ku ahaa macdanta qaaliga ah. tan ayaa ka dhigtay Mansa qof gacanta ku haya suuqa dahabka adduunka. waxaa xusid mudan in dahabku ah xilligaas lacagta la adeegsan jiray si wax loo kala iibsado, taasoo micnaheedu yahay in Mali ay soo saari jirtay lacagta adduunka laga isticmaali jiray xilligaas, halka uu hadda Mareykan ku jiro oo kale. reer galbeedkuna wuxuu u yaqaanaa caasimadda Mali magaaladii dahabka, balse dhaqaalahoodu kuma tiirsanayn dahabka oo keliya. waxa kale oo ay ka ganacsan jireen milixda maadaama oo ay lahayd Mali xeebo badan. xilligaasina qiimaha dahabka iyo milixda farqi weyn uma dhexayn. sidoo kale waxaa dheerayd in milixdu naadir ahayd oo aysan sida maanta u sahlanayn helideedu. Mansa Musa marka laga yimaado hantidiisa iyo deeqsinimadiisa wuxuu ahaa mid ku safaysan alla ka cabsi oo ah sifo ay yar tahay in laga helo boqor hantiyey xoolaha intaa leeg. waxaa u dheereed cibaado ay ka muuqatay khushuuc. Mansa ayaa maalin maalmaha ka mid ah go'aansaday inuu u hayaamo magaalada Makka si uu soo guto cibaadada xajka. laakiin socdaalkiisan ma ahayn socdaal caadi ah, balse wuxuu ahaa safarkii ugu yaabka badnaa adduunka, sidoo kale ka dhigay boqor Mansa mid ay soo caanbaxdo hodantinimadiisu. Mansa Musa ayaa ka soo dhaqaaqay Mali isagoo horkacaya ciidan 10,000 kun kor u dhaafaya. waxaa tirada lagu qiyaasaa inay isdaba joogeen inta ay ishaadu qabato. waxaa wehelinayay 500 oo qof oo ay shaqadoodu ahayd inay xambaaraan dahabkii uu boqorku watay. sidoo kale kumanaan geel ah iyo fardo oo iyaguna waday dahab iyo macdano qaali ah. magaalo walba sii marana wuxuu bixinayay dahab aan tiray xaddi toona lahayn. sidoo kale dhisayay masaajido iyo goobo waxbarasho iyo guryo uu hibahaan u siiyey dadka danyarta ah. safarkaas ayaa Mansa Musa ku qaatay muddo sanad ah. haddaba muddadaas wuxuu qaybiyey dahab uusan jirin qof maraysan kara tiradiisa rasmiga ah. xilligan uu Mansa Musa qaybinayay dahabkan tirada badan, dalal badan oo ka tirsan Yurub waxay la daalaa-dhacayeen gaajo, abaar iyo dagaallo sokeeye oo galaaftay nolosha dadkii ugu badnaa. haddaba daawade, hantidan aadka u badan kama dhigin Mali iyo boqorkeeda kuwa ka jeesta cibaadada iyo waxbarashada. Mansa wuxuu dhisay xilligaa mid ka mid ah jaamacadii ugu weynaa adduunka. jaamacaddan ayaa hoy u noqotay boqolaal aqoon-yahan, cilmi baarayaal iyo arday ka kala yimid daafaha dunida. sidoo kale magaalada dekedda leh ee Timbuktu wuxuu ka dhisay masaajid weyn oo lagu magacaabi jiray Jineha. ilaa haddana dhisan waddooyin, iskuullo, guryaha ay ku nastaan musaafiriinta. dhammaan xadaarada aan hore loo arag ayuu soo kordhiyey. maanta Mali waxay la daalaa-dhacaysaa gaajo, dagaallo sokeeye, jahli iyo aqoon darro. dahabkeediina waxaa guranaya dalal uu Faransiisku horkacayo
Mansa Musa wuxuu dhintay sanadii markay ahayd 1337 isagoo jira 57 sano. guud ahaan intaasaynu ku soo afmeerinaa muuqaalkeennii. haddii uu qanacay daawade ha ilaawin in like saartid lana wadaagta asxaabtaada. haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe taabo kambareelkana furo si ay kuu soo gaaraan dhammaan muuqaalada aan soo gudbinayno. mahadsanidin daawade. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.